caalamka kama dhicinin taangi ku tan ah fuula xidigta tasliiska kaga qabta tooreedka dhaladiisa hambareeg inta loogu jiro bastoolada iska jar leeyahay deg darawalkii oo maxaabiista la hayo caalamka kama dhicin ilaa reexad Salebaan maahin ay diid waa kii hal gal dagaalka Salebaan dad gali meyn Salebaan kale markaas wax furan ma badnaynba oo waxay ka xumaadeen hawiye isdilayay maskaxdu la wada gariirtaba waa kii isdhiibaya boomo soo wato anoo qaawunba isdhiibaya dadna galin dagaalka madaxtooyo dugsi shanaad ood weyne dayniile shirka la ofrshaale iyo shirka soo ofrshaale xarumihii ciidamada iyo gaashaandhig cilmi reexaji ahaa si gaar ah gacanta ugu qabtay hawiye dagaalka hawiye daarood buu noqday niman yar oo ay wateen ninkii la oran jiray Axmed Cumar Jees iyo gabiyow aadan gabiyow oo ogaadeen ah way jireen oo dagaalka duufaanta markaas xamar lagu hareereeyay ka soo qaaday baarsiyaabli baar magoog ka soo qaado dhinaca baydhabo ka gal la yiri laakiin ninkii si aad badbaadiyay ahaaya aakhirkiina hawiye cagta mariyay sidii booldan geesale gabigoodba hubka ka qaataba daaroodiyadii iska noqoto halka markii marayso hawiye uu qaybtamay waxa la yiri yaa yaqaan la iskama durduriye sumcad dunida yaa kule yaa taangi yaqaan yaa antigraph yaqaan yaa small arabs yaqaan yaa xariyaha u bareeri kara yaa nafti hore ah waa loo daat madaxtooyo dugsi shanaad ood weyne dayniile shirka la ofrshaale iyo shirka soo ofrshaale xarumihii ciidamada iyo gaashaandhig cilmi reexaji ahaa si gaar ah gacanta ugu qabtay ilaa 7 taangiya lagu qabtay small arms kale oo ama suuga ama tiidisana ama shilka iska daa waxba lama tiriyo kaydkii rasaasta baraagaha dhulka hoostiisa walaa cad wala xisab albaabada u firay hawiye uu qaatay ka bacdi dhibaatadii waxaad maqlaysay maxamed abshir haabaan iyo ay sameeyeen ninkii la oran jiray Cumar Cartaqaali oo ahaa ciidamadu xaqana isku dhiibeen maamul waxa la dhisay macmala oo niman maanfaysta dhiseen oo lagu dhisay Ali Mahdi Maxamed ka bacdi wala iska soo horjeestay qabiilaadkii ama jabhadii USC markaas waxay noqotay jabhadii USC oo practical leh awal tooriye ahay practical oo la arko la taaban karo jabhadii waxay ka xanaaqday markii la arkay 100 gaari u raran garow caawimaal u raran siyaasad awgeed oo baljoojiyada leeyahay joojiyada waxa ka dhacay dagaalkii xuma akhriska ahaa oo aan ku yaqiiqsaday ee 4 bilood kala yiraahdo oo hiraabka dhexdiisa ahaa Salamaanku shuf buu isiri shuf sidii diinku shuf isiri maana faystatiin baa habar gidibta oran jiray hiraab kale oran jiray sulxiga maana faystatiin kadib 4 bilood markii lagu wiiqmay dadkii tuhun kala galay saraakiishii isugu soo gudi weyday habeenimo la shiri waayay wasaq waaweyn dhacday taliskii faashiga shacbidiidkii u maladooxi irtiinkii barre ilaa kismaayil dhaafiyana waa soo rogal cili ilaa shabada xaq u soo dagaal tageen arbista asoo jooga arbiska afkuwi ay diid waa kii hal gal dagaalka Salebaan dad gali meyn Salebaan kale markaas wax furan ma badnaynba oo waxay ka xumaadeen hawiye isdilayay maskaxdu la wada gariirtaba waa kii isdhiibaya boomo soo wato anoo qaawunba isdhiibaya dadna galin dagaalka goob joog baan ahaa tarabuunka lagu soo fayliyay 66 taangi oo T54 iyo T55 ah dagaalka xadkii xawaaraha dhacay oo lagu samaynayo SLA Somali Liberation Army marka geel la leeyahay maalintii runta gaadhay raayul caamku ogaa ridada dheer iyo shiishkiyo hawsarka la isku ridaayay oo raqwada la iska jaraayay rocket ko dananayo taagir raafa balaaran iyo beebbe soo rixinaya baroon ugu rabaysan u riyaaqa colaada intaas oo isku raasa dawladku soo ridayeen aqliga waa ka riqiise hawiye aan rabayno rarkan aan cuslayno ra'yigoodu ahaa tuulkii reefilka haystay ee inta ruuga waastay rujiye xididkooda raxamba meeli oriyooday ramsadaan ahay ee maanta ruulaan iyo raas la'aan bayeen daarahay rakbaan rafaad ay ka hordaan risiqi la cunay rakada laga saaray hubkii reenka wacnaa iyo rasaasta ka dhacaysan barqaanu ka reebnay ruucada isku sheegiyo soo rogal cilintoodu maraqdooda afgooyo tukuwaas ka rifta ma garadheer rag ismooday baa inta ruuga gaxaytay araare roorku ku qaaday waxa doodsamaya naagii ruugta joogo rasmigeena ahaabay tuutabaas ku reereeno timihii ka rifeen iyagoo riyamoodo ruucla soo galiyeen runtii waa kan xanay aan qurbiya raamaalayaashii hadda raambu ku asiibin haddii aan jabado roronku maray raacdo kugu keenin
haddii uusan rukuubka iyo fardaha raaci kugu meerin haddaan jananku kugu soo rabayn rugaha aad joogto haddii uusan raafka iyo majaha seeta kugu roorin haddaan gadaba reeraha degaa raaxaladii waayeen haddii aad roobka iyo nimcada gaajo kala roorin haddii aad raaciye ka noqon raarka xamar weyne amaan rubaca daarood ka haray dhalasho loo raadin irirka israaciya manay soo ruqaasaday intaas kadib 90 iyo labadii dagaalkii ay soo qaadeen gumaystihii 37 dal 108 kun oo ciidan cirka dhulka iyo badda oo amis UNISOM barayka hogaaminaya Black Hawk diyaaradaha ya waxaan u maleynayaa inay qalad ba igu ahaynba ya garoonkan nin wax ku leh cadaada roodhigii hilibka lagu kariyo cadaadana wax ku leh ninkii laba diyaarad siban ku dhuftay buu ahaa nin salaam reer Muuse reer Fataxawi laba diyaaradood uu ku gubay siban inta dabaq la fuulay haraagi maxamed siyaad barre wuxuu ku soo duulay dhulkan oo dhan jaaba soo ararsaday marka taangee la saarayo way taangee la saarayo galisoor cadaada iyo galisoor ha magarat gaadiid badan baa meesha looga qabsaday caalamka kama dhicinin taangi ku tan ah fuula xidigta tasliiska kaga qabta tooreedka dhaladiisa hambaleeg inta loogu jiro bastoolada iska jar leeyahay deg darawalkii oo maxaabiista la hayo caalamka kama dhicin ilaa reexad salabaan maahin galisoor qaybta dhaakaroon qaybta ugu xoog badan Soomaaliya ah oo laga difaaci jiray dhabad iyo caawad waxa kale u siibay ee ka taqalusay aakhirkii finalkii nolosha lagu soo qabto dhabadna laga dhigo foore balli la dego ya allah u naxariistay maxamed cali cagweyn oo ahaa ganacsade leadership ah oo ku dhintay cadaado buu ahaa ninkii ogolaaday in laga mido motorka iyo suulay ninkii loo oranjiray suulay kadib dagaalka noocaas u sii socday taariikhda marka historiga tacadigi ku dhacay reer xaaji Saleebaan in la qariyaan diidina